xuquuqda codbixinta muwaadin ma og tahay mase taqaanaa xuquuqdaada dastuuriga ah sida uu dhigayo qodobka 22aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadin kasta oo u dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana buuxiyay shuruudaha xeerarku tilmaamayaan waxa uu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo arrimaha siyaasadeed dhaqaale bulsho iyo dhaqan waxa kale uu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto si sharciga waafaqsan doorashada madaxtooyada ee 2017 waxa codayn kara oo kaliya muwaadin isdiiwaan galiyay oo sita kaarkiisa codbixineed lana taga goobta uu ka diiwaan gashan yahay maalinta codaynta oo ah 13 Noofambar saacadu marka ay tahay 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo nidaamka codbixintu waa mid shakhsi ah xor ah toos ah qarsoodi ah si siman loo tixgeliyo ma jiro cid kugu qasbi karta inaad u sheegto cidda aad u codaynayso mana jirto cid cadaadis kugu saari karta inaad u codayso cid gaar ah waxaad leedahay hal cod oo kaliya go'aankaaga ugu dambeeya ee codbixinta adiga oo kaliya ayaa iska leh muwaadin iska jir inaad soo qaadato kaar codbixineed oo aanad lahayn inaad urursato kaar codbixineed oo dad kale ay leeyihiin inaad isku daydo inaad samayso ama aad qaybiso kaar codbixineed oo been abuur ah inaad ka dhex hololayso goobaha codbixinta ama aad isku daydo inaad laaluushto codbixiyayaasha shaqaalaha askarta wakiilada xisbiyada kale iyo wixii la mid ah inaad xoog u adeegsato ama aad u cagajuulayso shaqaalaha goobaha codbixinta si aad ugu qasabto inay musuqmaasuq sameeyaan muwaadin kasta oo ku kaca arrimahaasi kor ku xusani waxa uu gelayaa dembi waxaana lala tiigsan doonaa maxkamad sharciya waxaanu mutaysan karaa xadhig gaadhaya 6 sano oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo gaadhaya 10 milyan oo shilinka Soomaaliland maalinta codaynta lama ogola in goobaha codbixinta lala yimaado hub astaamaha xisbiyada sida koofiyadaha calamada biladaha boodharka garamada shalmadaha dalladaha iyo wax kasta oo leh astaan xisbi u gaar ah